السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مركلة إيو لبرة عالية. ما أنت محن لبرينا عالية وحن لبرينا سيد الله simplify جريو fraction كا أما تشابك كا. fraction كا إنه تصارع وسوق هذا إنه أما exercise كن كسبنا إنه وامحي و 9 divided by 12. هذا بعد كواركتا امتحان أما homework ولو بيلاهدو 9 divided by 12 وبدل محايته simplest form كا number 1 waxaad soo saaranaysaa waxa la yiraahdo GCD lambarka GCD gaasaa soo saaranaysaa lambarka markaad la soo baxday GCD when you find out what is this GCD uu yahay ayaad u qaybinaysaa halkan aad halkan u qaybinaysaa haddaba sidee baan GCD ku helaynaa waxaan ku helaynaa labada lambar ee aad haysatay isku saaran waa numeratorka iyo denominatorka ka weyn oo this way imika ah 12 ayaad waxaad u qaybinaysaa ka yar markaad u qaybinaysid waxaad oranaysaa markaa 12 for example halkan ku qoraysa 12 divided by 9 marka 12 divided by 9 this is a long division 9 goes to 12 one time 9 minus 12 waa maxay markaa waa 3 reminderki markaa waxa weeye waa 1 markaa 3 bay noqonaysaa reminderki marka waa 1 quotient ah iyo r oo reminder kia oo 3 ah maad helin wali GCD waxaad helaysaa marka aad reminderku uu 0 noqdo hadaba sidee baad 0 reminderku u gaaraysaa marka hadda lambarkaad soo qaatay wuxuu ahaa lambarkii ugu weynaa steps kan marka you have to follow these steps you got to pay attention to these steps marka 12 baa ugu weynaa 12 kaad ku bilowday labada lambar 12 iyo 9 12 ka weyn 12 kaad u qaybisay 9 kii marka 12 kii waa la qaybiyay already marka it's gone waa baxay step 1 kii uu ka baxay marka 9 kii baa ku soo haray 9 kii maadaama wali r aanay 3 ahayn 9 kii baa soo qaadanaysaa hadda 9 kii baa ugu weyn marka 9 kan weyn ayaad maxaad u qaybinaysaa reminder kii baad u qaybinaysaa marka oo kan ah kan labadan baa soo qaybinaysaa marka imika 9 kii baad u qaybinaysaa marka 9 ayaad waxaad u qaybinaysaa 3 3 goes to 9 3 times 3 times 3 9 9 minus 9 0 wala markaas waxaanu helay imika reminderkii 0 marka waa maxay waa 3 r 0 maadaama reminderkii 0 noqday halkeenu doonayna waynu gaadhnay marka lambarka ugu dambeeyaad eeganaysaa marka ee wax qaybiyey lambarkaasaa GCD-ga ah markaas GCD muxuu noqday imika markaa GCD of 9 and 12 muxuu noqday wuxuu noqday 3 markuu GCD-ga caynkaa noqday haddaba maxaynu nidhi 9 divided by 12 GCD-ga u qaybi kan sare ka hoosena u qaybi 9 divided by 3 is 3 12 divided by 3 is 4 that is your simplest form. Thank you very much and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.